ardaydani waa qayb ka mid ah ardaydii barnaamijka shaqo garan gaar ahaan ardaydii loo qoondeeyay inay u fadhiistaan imtixaanka loo galayo shirkadda Singapore ee warshada sibir ka samayn doonta oo ballantu ahayd inay maanta imtixaankaasi galaan balse ma suurtagelin arrintaasi waxaana ardaydani sheegaan oo ay ka cabanayeen la musuqmaasuqay cadadkii boosaskii loo qoondeeyay inay ku tartamaan oo hore xukuumadda Soomaaliland u sheegtay in 400 oo boos imtixaan loo gali doono halka uu maanta agaasimaha barnaamijka shaqo qaran uu sheegay in loo tartamayo 300 oo boos waxaana ardaydani hoosta ka xariiqeen inay guud ahaan bagaleen qaybta u hadhay imtixaankani oo qayb ka mid ah ay galeen saaka waa soo jirmaanay waxaan ahay nimanka dheeriyadaha ka yimi shaqo qaran baan nahay anaga golada xagga bargaan ka nimi 800 oo kilomitir baan soo taragnay saaka markay imtixaankii aanu galnay arday baan igu jirtay oo bilaa eedi kaara ardaydii waanu cilaaminay waanu sheegnay waan laga saaray imtixaankii markaan ka soo fulay oo aanu soo dhamaysanay ilaahay noo soo dhameeyay waxaanu ogaanay in qayb ka mid ah ardayda oo waliba 300 arday gaadhaya ay ku galayaan meel la Grand Hotel waanu yaamnay waxaan is weydiinay haddana maadadkii beejkiisa baan aragnay isagoo soo dhigaya arday maanta hore wuxuu leeyahay 400 arday loo baahan yahay haddana wuxuu noo sheegay in 300 arday loo baahan yahay markaas imka imtixaankood gashay waan galnay laakiin masmaas weyn baan hareeyay oo aan ognahay oo wax la ognahay 300 arday inay ku galeen Grand Hotel oo loo yahay wariyaal ku xidhan yahay okay marka waxaad leedahay ardaydan branch shaqo qaran hayn baad imtixaan ka qayb noqotay ha way jirtaa taas sifan noocay kaga qayb galeen adoo ma garanayo laakiin se way jirtaa taas inuu imka imtixaanka wad gasheen adana cabashaad muujinaysaan maxay ni xal de waan isku tashanay ilaa rag barnaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ونوردين هذا محمد كيمي قبل كساحل شقة قرم للشاعية تحان كان لو قولي صدق بشا هو الكتشام عده هرقيسة وحنو أوغاني وعدين اللي قال لبا قبوضو كله وكمديهين هوتيل قولي هوتيل يقرنهن أنا قلنا لما شيء قبل كان امتحان لو قوليو لكن مكو وحنو أوغاني إن دور قبوضو هرقيسة كمده imtixaanku loo galay oo aan gelin waliba arday shaqo qaran ka mid ah oo ay galayso ardayda waxaan u sheegnaa madaxweynaha baaq in mashruucii ugu wanaagsanaa ee dhalinyarada ugu daacsanaa in la musuqmaasuqay ardaydan aad sheegaysaan goobo kale imtixaanka laga qaaday ma dawladda ka qaaday mise cid kale may waxa ka qaaday intii anaga halkan naga qaaday muwaadinka ku jiro agaasimaha guud nimankii China halkan ugu yimi way u tageen imika interview waxaan ugu leeyahay kood iyo barkaad gaysaan saacadu imika waa 3 wali alaanka ma hayna cid noo timaada anagoo gobol fofo ka nimi ما هي نوع عد إنه قلت ما تقوبتي ترفيه إمي واحد شغلنا قوبتي ترفيه جامعة سدح لما ساعة وبعد أفتي وقت وين الله بالمين ولا أنا كان عندنا نوتي مشتو وحنا أجنهي وأنا تلفون كلها الأرض دي قشيت حان كاس والنورشة معينه ترفيه يمكن وصعده. أوكي مركا يمكن حان كات قشين وتشوش سنة وحكم الشرام حان كي وأنا هران وقال لسه لكن ترفيه قلي منه. أنا واحد مقعد وحنا نرديس معرفتي كي مقولك ساحل مركا دمان أرضيدا شغال قرن برنامج شغال قرن لما أنتود waxay halkan isku wada yimaadeen imtixaan cadaaliya sidii madaxweynuhu noo sheegay shaqo qaran wixii lama musuqmaasuqi karo wax musuqmaasuqna kama dhici karo markii horeysay agaasimuhu wuxuu nagu dhawaaqay inuu 400 oo shaqo qarana 400 ay qaadanayso shirkadda Singapore New Silky Energy ay qaadanayso 400 imikana marnaweyto wuxuu beejka soo dhigay inuu qaadanayo 300 hadalkiisii hore iyo hadalkan dambe labadaba waa qoran yihiin imtixaankana wuxuu shaaciyay in one position lagu galayo oo ah jaamacadda Hargeysa la iska xadirin doono tiina waa dhici weeday waxa lagu galay 2 goobood oo kale imtixaankii qaybaad gashan qaybta labaad ma galaysan qaybta labaad ee cadaaladii hadii aan tii hore arki weynay tanna ku galmino isbeddelkan ay saaka la waabariisteen ardaydan iyo shacabka magaalada Hargeysa ee saameynta ku yeeshay ayaan cadayn halka ay sirtu ka qurantay waxaana mas'uuliyiinta xukuumadda gaar ahaan agaasimaha barnaamijkan shaqo qaran aan xiriir la sameeyay oo ka maqoortay jawaab ka bixinta arrintani balse waxa laga warsugayaa halka uu xaalku ku dambeyn doono